دولة بودلين uu madaxweynaha u yahay Cabdullaahi Siciid Cabdullaahi Deni uu madaxweynaha u yahay waanu taageeraynaa maal iyo muruqba waa ku maal iyo codba waanu ku taageeraynaa waanu ictiraafsanahay waxaanu kale ku taageeraynaa farsamo wanaaga uu sameeyay iyo ragga uu isku bedelay oo uu isagoo madax banaan uu si wanaagsan u farsameeyay baanu ku taageeraynaa inta waxaan ku darayaa raggii hore waxay ka hadleen in lagu tunto maaha dawladda federaalka waanu taageersanahay laakiin waxaanu doonaynaa dawladda Puntland inaanay faragelin burburiisa aanay ku faragelin Puntland waa hooyadii Soomaaliya waa meeshii laga aasaasay federaalka waxaanu doonaynaa iyadana inaan la burburin oo faragelin lagu burburin hadalkayga waxaan ku soo gaabinayaa wasiiradan cusub madaxweynuhu uu magacaabay waa wada salaamo yihiin waana wada taageeraynaa ninka la yiraahdo Ismaaciil Saleebaan Geelle Maxamuud waxaanu nahay odayaashiisii waxaanu nahay guddidiisii sida gaarka aanu u magacaabaynaa sidaa weeye laakiin waanu wada ictiraafsanahay odayaashiisii baanu nahay guddidiisii baanu nahay waa taageeraynaa isaga iyo dawladdiisa uu ka shaqeynayaba giddi waa ku taageeraynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu halkan isugu nimi odayaal doonaya inaanu ka hadalno taageero bogaadino mowqifkayaga caddayno ayaanu nahay taageeradaasi waxay ku jeedaa Puntland ayaanu iyo hawsha ka socota iyo waxqabadkeeda ayaanu taageeraynaa halkan waxaanu taageero ballaaran oo ciidan iyo xuduuda aanu ku taageeraynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waa taageeraynaa waxaanu ku taageeraynaa codkayaga iyo xuduudayada intaba waa ku taageeraynaa waxaanu u taageeraynaa ku dhaca iyo geesinimada iyo garashada uu leeyahay ku taageeraynaa waxaanu ku taageeraynaa inuu magacaabay wasiiro ku habboon xilligan maanta la joogo inay xilkaa qabtaan ku habboon ayuu magacaabay si geesinimo ah buu magacaabay waa ku taageeraynaa waxaanu kaloo caddaynaynaa wasiirada la magacaabay si siman baanu horta wasiirada aanu horta u bogaadinaynaa uguna mahad celinaynaa gaar ahaan waxaanu sii taageeraynaa wasiirada loo magacaabay reer Laascaanood la magacaabay gobolka Sool Laascaanood loo magacaabay waa wasiiro ku habboon in la magacaabo waa wasiiro ah deegaanka dhabta ah ee reer Laascaanood waa wasiiro ah aqoonyahan iyo garasho badan leh oo xilka loo magacaabay aanu qabno inay ka soo bixi karaan waanu ku raacsanahay waanu taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa saddexda wasiir laga magacaabay gobolka Sool waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay madaxweyne garashadaada ayaad ku magacowday iyadoo aan cid kugu khasbayn baad ku magacowday waanu kugu taageeraynaa markaanu taas ka taageero anagu waxaanu nahay nimanka reer cilmi waxaanu malayaa bari waxaad ka tidhaahdaan baa reer cilmi beesha reer cilmi beelweynta cilmi reer cilmi baanu beelweynta reer cilmi baanu nahay waxaanu ku taageeraynaa taageerada mushan anagoo reer cilmiya oo beelweynta reer cilmiya ayaanu taageeradayada kula gabal taagana cod iyo cududba waa kugu taageeraynaa intaa waxaan uga gudbayaa intaa markaan ka gudbo beel ahaan waxaanu ku faraxsanahay wasiirkayaga cusub ee aad magacowday waa kugu bogaadinaynaa Ismaaciil Saleebaan Geelle Maxamuud waxaanu kaloo kugu bogaadinaynaa anagu lacag dooni mayno booska aad u magacowday ee wasiir ku-xigeenka amnigana waa kugu bogaadinaynaa Puntland oo dhisan ciidan leh amni leh ayaanu anagu doonaynaa waxaanu madaxweyne kuu sheegaynaa ninka adaaba nooga aqoon badan tii horena adaa magacaabay oo la taliyaha madaxweyne xagga siyaasaddu ahaa taana waanu kaaga mahadnaqaynaa tanaad maanta ku magacowdayna waanu kaaga mahad celinaynaa ninkaas waa nin Mareykanka ka yimi nin adduun doonaya maaha
magac buu meeshaa ku yimi iyo inuu Puntland u hoyliyo waxaan kaloo ku daraya Puntland oo burburta ma rabno Puntland jirta nabada nabdoon kursi ku wada fadhida la wada tashanayo ayaanu doonaynaa waad leedahay hogaaminteedii madaxweynihiina waa tahay boqorkiina waa tahay labada waad leedahay boqor wasallam waxaanu shirkan saxaafadeed ama shirkan u qabanay inaanu taageero oo ku taageero aan taageerada u muujino saddex qodob baanu ugu weyn taageerada ugu horeysa waxaanu taageeraynaa oo aanu aad ugu hambalyeynaa oo ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni magacaabista u magacaabay wasiiro iyo aqoon-yahano wax ku oola uu magacaabay dowladdiisa sida runtiina way ku habbooneed waqtigan in la helo wasiiro wax garanaya oo aqoon leh oo tayo leh oo soo shaqeeyay oo yaqaano Puntland oo tacab ku leh ragga hadeer la magacaabay waa rag ku filan shaqada loo igmaday horena uu soo shaqeeyay marka madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba waad ku mahadsantahay magacaabista aad magacawday raggii xilka mudnaa marka labaad waxaanu hambalyeynaa oo taageerinaa haddaanu nahay deegaanka reer Laascaanood iyo odayaasha beesha reer cilminaaliye ama beesha reer cilmi wasiirada Puntland ee aad magacawday gaar ahaan kuwa aad u magacawday gobolka Sool degmada Laascaanood oo ah raggii deegaanka ahaa yaqaanayna dadka waxay yihiin iyo Puntland waxay tahay iyagoo ka soo shaqeeyay hore uga soo shaqeeyay ilaa burburkii ilaa iyo bilowgeedii ilaa iyo dhismaheedii hore uga soo shaqeeyay tacab badan ku leh wasiirka cusub ee arrimaha wasiirka xogeenka cusub ee amnigana Ismaaciil Salabaan Geelle waa nin aqoon-yahana ku filan shaqada loo diray yaqaana aan soo dooran xoolo laakiin soo doontay waxa weeye inuu magac tacab geliyo Puntland waxna qabto diyaarna u ah una dhabar adeegayo wixii allaaliyo wixii nabadgelyadeeda xumeynaya kana shaqeynaya diyaarna u ah taana waan ku mahadcelinay waan kaga mahadcelinay waan u hambalyeynaa nimankaas ee wasiirada ah ee aad magacowday guud ahaan iyo gaar ahaanba ta saddexaad Puntland gacmaha ku jira looma baahna hadday dowladda federaalka tahay dowladda federaalka tacab badan bay gelisay Puntland waa hooyadii federaalka uma baahna markaa in la shaqeeyo iyo in waxa weeye wax la yeelo iyo in la kala daadiyo Puntlandna waxay mudan tahay in la taageero oo la ururiyo oo wax loo qabto iyaduna waxay mudan tahay Puntland inay dowladda federaalka isgarab taagto ilaaliso la shaqeyso waxna u qabato marka waxaan leenahay dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa cali xasan cali khayre mudanayaal iyo madaxweyne iyo wasiir ra'iisul wasaare waxaa la leeyahay Puntland waxa weeye gacmaad kula jirtaan haddii ay jirto haddii ay jirinba fulaaxantiisa ma mooge hawshaas waxa weeye dib uga baxa ka daaya ha dhibaataynina ha fadqalalaynina uma baahna farqada waddanku wuxuu u baahan yahay waxqabad iyo waxtar ayuu u baahan yahay annaguna waxaanu taageeraynaa oo aanu taageersannahay waxqabadka dowladda federaalka iyo waxa weeye dowladda Puntlandna haddii aanay jirin federaalku jiri maayo dowladda Puntland hadday baaburto federaal waa burburaya marka waxaad ogaataan inaad ka shaqaysaan in sidii Puntland loo dhisi lahaa wax loogu qaban lahaa loo tayeyn lahaa iyo maamul gobollada dadka kaleba aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim haddaanu nahay odayaasha reer Laascaanood ee shir-saxaafadeedkan qabtay sidii odayaasha hore sheegeen waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni cod iyo muruq iyo maalba madaxweyne waa kuu garab taaganahay wasiirada aad magacawday iyo hawsha aad qabatay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa kugu garab taaganahay waanu kula shaqaynaynaa aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa inta markaan ka gudbo dowladda federaalka waxaan leeyahay Puntland waa hooyadii dhashay dowladda federaalka marka waxaan leenahay laga daayo faragelinta iyo lacagaha la soo dirayo laga joojiyo cidna ka yeeli mayno Puntland inay burburiso una dulqaadan mayno taasna intaasaan ku dhaafayaa shacabka Puntland iyo baarlamaanka waxaan leeyahay madaxweynaha la shaqeeya isgarab taaga yaan la burburin Puntland cid kastoo dacaynaysa laga ilaaliyo aad iyo aad baanu mar labaad iyo mar saddexaad haddaan nahay odayaasha beesha reer Laascaanood aan ugu hambalyeynanaa
wasiirada haddaan nahay odayaasha reer cilmi aan ugu hambaleynaynaa saddexda wasiir ee ka soo jeeda naascaanood deegaankan u dhashay degmada naascaanood gaar ahaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynanaa arrinta horta waxay ku socotaa waa taageerada laakiin in yaroo taariikhan anigu uga noqonaya waxay tahay 64kii berigii ahayd ee cabdirashiid cali sharmaarka oo ra'iisul wasaaraha ahaa dowladda Soomaaliya raggii u shaqayn jiray laba qaybood buu ahaa rag bursunaal baa la oran jiray shaarar cadcad iyo surwaal bay ku shaqo tagi jireen markay toddobada shaqada galaan waxay iman jireen sagaalka baararkay ka sheekayn jireen ragna jooriyeri baa la oran jirayoo lixdu shaqada geli jiray 12 kan waa ka soo bixi jiray dalku horta saas u ahaa waxaa la doortay cabdirasaaq xaji xuseen cabdirasaaq dikreetadii ugu horreysay soo saaray waxay ahayd dawaanku horta waa 8 saac 8 saac weeye 8 saac baa dawladda loo shaqaynaya samaad garan ninkii ilaa biyatooni ilaa sanan director wuxuu amar ku soo rogay ninkii 7 saac laga waado 7 subaxnimo ninka laga waado xafiiska in shaqada uu ka rabsan yahay waana ku bilaabayo warqadii boosta rooso iyo soo jeedi nin walba boostaas markuu casro iyo carab jiray samaad garan waa soo wareegtay doorashadii baa la galay dawladdii dhameed waxa la yiri cabdirasaaq soo geli baarlamaanka yuu soo geli dadweynihii baa rabo waa la doortay samaad garan 120 keenin isaga mucaarad noqday 119 kale maayid bixi waa la ogaa waa loo joog maxaa lagu haystaa ninka xoolo ma dhicin cid ma dilin wax ma samayn waxa weeye dalka loo shaqeeyo dadka loo shaqeeyo shaqo lagu haysto ayada la furay waa abdi abaar kanuu qabaa siibay buu qabaa warqad buu laqay waxba su'aal loo faafiyay samaad garay hadaba waxaan leenahay dani hadda waxa lagu haystaa waxa weeye war kursigan dadka lagu kala bedelayo dawladda iskale waana meerto ninba maalin baa loo dhiibaya Soomaalidan garan deenikii maalinta laga qaadaa iyo moodin dhaxal u lahaado laga qaaday waa wax dawladeed ha lagu samro sidaa weeye